waxaan inaan mataqaanaa xaaladaha dagaalka iyo xaaladaha caafimaadka iyo barakaca iyo waxa dhibaatada ka taagan gobolka inaan xoogaa la noqono hada wareegay anaga waan joognaa marka bana waan nimaadnaa anaga dadka maartay hore u joognaa haddana joognaa marka wararkaas oo kale anaga waxa weeye saxaafadda iyo waxaas lagula wareegaya dadkan waxa weeye dad dhibaataysan dagaal ku jira barakac iyo wax walba ay taabteen dad badan lagu xasuuqay dhulka dad badan magaalooyin dhan la haysto marka dadka ku wareegaya inay mataqaanaa wax aan mataqaanaa waxba ka raacaynin oo aan ictiraafada ku jirin ku wareegaya daano dadkaas waxa weeye wararkayga anigu had iyo jaraale inaan ku dheerirsado ma doonayo laakiin anigu waxaan ka shaqaynayaa maamulkan dowladda Puntland oo si joogto ah uga shaqeysa gobolka Cayn iyo hareerihiisa arda difaaca ugu ballaaran ee buuhooda loo qabsan waayo dowladda Puntland mas'uulka haddii buuhooda aan Puntland mas'uulka ahayn ama ku dagaalamaynin anigu maleynayo in ilaa hadda mataqaanaa ay gacanta ku jiri lahayd dadka ciidanka ku dagaalamaya iyo agabka ku dagaalamayaan iyo sida yihiinba waxa weeyaan dowladda Puntland ayaa filisa madaxweynaha hore ayuu ugu sheegay inuusan mataqaanaa uu safaraha uga laabanaynin Puntland faraha ka laabanayso dagaalka waana ku jirnaa waana sii geli doonaa waxa anagu waxa adigu ogtahay waxa ogtahay ku sheega wixii aad ogtahay aniga ay weydiin ayaa hadda hadday stationka tahay hadday gobolka tahay haddii ay degmada tahayba way joognaa waana fadhiyaan waana aragtaa hore u joogay hadda ciidamada Puntland waa ku sugayeen foonada kuwa fadhiya ee ku dhimanaya maalin walba la waxaynahay u baaqaya inay iska celiyaan horarka isaaqa ee doonaya inay dhulkooda furtaan badna furtay in loo midoobo oo aan dhibaatada iyo mataqaanaa laga daayo siyaasadda oo dadka dhulbaantay dadka reer Buuhoodle ee gobolka jooga ay u midoobaan kuna dagaalamaan magacoodii asalka ahaa ay ku dagaalgalaan khaatu wax naga dhaxayso waxaan ku dastaan ma jirto haddii ay wax haystaan ama ay wax samayn karayaan ama ay dagaalami karayaan ama ay magac meel ku horeynayaan kaligood dawlad loo joogo lama fadhiya laakiin inay yiraahdaan anaga anaga atraaf oo halkan maray ma he waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in meesha la iska muujinayo waa barta dagaalkana ninkii galay baa galay haddaan qabiil ku goda galana waa wada galaynayo waa nuunahay haddii magac keenayaan iyaga u taalaabo dadka tusina waxay hasoo bandhigeen